ma jeclaan lahayd inaad si dabiici ah luqadda Englishka ugu hadasho ama aad u barato luqadda Englishka adigoo welibana ka baranayo dhan walba sida listeningka, readingka, writingka, speakingka iyo weliba grammarka adigoo si wada jir ah isula baranayo halkii aad hal dhinac aad ka xooga saari lahayd ama aad ka baran lahayd. haddii jawaabtaadu haa tahay bishaaro fiican ayaan kugu wadaa. fadlan muuqaalkani adiga ayaa lagugu talagalay ila joog. laba xaaladood mid uun baa ku sugan tahay, ama waxaa tahay qof ku nool wadan qurbe ah luqadda Englishka looga hadlo doonayana inuu shaqooyin sarsare ama arrimo ganacsi ah la qabsado bulshadaasi kale ee aan Soomaaliga ku hadlin, balse caqabada ugu weyn ee hortaagan ay tahay inuusan luqadda Englishka si fiican u aqrin karin, una qori karin, uguna hadli karin. ama waxaa tahay arday jaamacado caalami ah doonayo inuu wax ka soo barto balse luqadda Englishku ay tahay caqabada ugu weyn ee hortaagan. xaaladda doontaba ku sugnaaba haddii aadan problemkaasi ku haysto aadan xalinin waxay noqonaysaa inaad riyooyinkaadii aad nolosha ka lahayd inaad dib u laqdo ayay noqonaysaa. inaad markaad mar walba aad u baahato luqadda Englishka oo kale inaad wax ku qabsato oo kale aad raadiso qof ku turjum. haddii aad dhakhtarka aadi lahayd oo kale aad u baahato qof ku raaco si uu wuxuu dhakhtarka sheegayo kugu turjumo, ama markaad baahidaada fushanayso sidoo kale aad ku qasbanaato inaad qof u sheegto kadibna qofkii isku dayo inuu dhakhtarka u turjumo tiyo markii dambe keenayso isfahan waay. mar walbana suurtagal maahan inaad heshid qof wax ku turjumo, marka waxaa fiican inaad biyo sacabadaada aad kaga dharagtid. haddii aad arday tahayna waxaa suurtagal ah in jaamacadihii lagaa diido aad ku tala jirtay inaad ka mid noqoto lagaa diido, rayadaadii iyo rajadii mustaqbalka aad ka lahaydna halkaasi ay ku burburto. waa arrin run ahaantii aad murugo u leh. haddaba su-aasha ugu weyn ee meesha taalo waxa weeyaan what is the solution? xalku waa maxay? The solution is to learn English professionally in the shortest period possible. xalku waa in aad luqadda Englishka si professional aad ku barato, weliba muddo kooban aad ku barato. haddaba waxaan kugu bishaaraynayaa inaan kuu diyaarinay koorso la dhaho English Inside Out. koorsadan oo ah koorsadii ugu dhammaystirneed uguna ballaarneed ebed bulshada Soomaaliyeed loo soo gudbiyo. waxay ku beesgaraysan tahay manhaj caalami ah oo dhammaystiran ayay ku beesgaraysan tahay oo dhinac walbo aad luqadda Englishka uga baahan tahay kaa dhisi doono hadduu Ilaahay ka raali noqdo. inta badan waxaa dhacdo markii luqadda Englishka la baranayo kale in la isku dayo in lagu xifdisiyo luqadda Englishka. haddaba luqadda Englishku ma ahan ama luqadoo dhan ma ahan qur-aanku wax iskama bedelaan, aayadiisu wax iskama bedesho. sida ay tahay ayaa u xifdinaysaa, sida ay tahay ayaadna meel walba aad tagtid qof walba oo qur-aanka aqrinayo isku si baa loo aqrinaya. laakiin Englishku iyo luqadahoo dhan sidaasi ma ahan. hadda haddii aan ku weydiiyo af Soomaali ma xifdisan tahay, jawaabtu waa maya, ma xifdisanid. hadba sidaad ugu baahan tahay ayuu af Soomaaligu kaaga soo maaxanaya. markaad suuqa tagtid oo kale ma jiro cashir Soomaali ah ku qoran ee lagu dukaamaysto, ma jiro. markaad tagtid hadba erayadii iyo jumlooyinka aad u baahan tahay hadba xaaladda aad ku sugan tahay ayaad kaaga soo maaxanayaan erayada, sidaasi ayaadna baahidaada ku fushanaysaa. haddaba maxaa kuu diiday in aad Englishkana sidaas oo kale uu kaaga soo maaxdo xilli walbo meel walba aad ku sugan tahay, aad mar walba aad u heli karto maskaxdaada ka soo saari karto jumlo saxan oo grammarkana ka dhammaystiran, dhawaqeeduna saxan yahay, oo qof walba aad u soo sheegtay, qof walba aad kula hadashana oo si fudud ku fahmi karo inaad ugu hadasho. waa suurtagal weeyaan haddii aad koorsadani aad nala dhammaysato. koorsadani muddo dheer ayaa laga shaqaynayay, muddo 2 sano ku dhawaad ayaa laga shaqaynayay, haddana dib u habeyntii ugu dambeysay ayaa lagu sameeyay. cashir walba koorsadani ku jiro waxaa la socda listening ayaa la socda. markii lagu sharxo af Soomaali lagugu sharxo cashiradii oo aad fahanto aad qorato, waxaad awood u yeelanaysaa inaad dhagaysato, ayaad awood u yeelanaysaa adigoo ka dhageysanayo dad luqadda u dhashay oo erey walbana si sax ah oo si waadaxna ugu dhawaaqayo, si markaasi adigana kuugu fududaato inaad fahanto erayada lagu dhawaaqayo, awoodna aad u yeelato mar walba aad ereyga ku hadasho inaad si sax ah ugu dhawaaqdo. Hi, I am Noah. I'm 25 years old. I'm Australian and I'm a doctor. koorsadani waxay ka kooban tahay 5 level ayay ka kooban tahay. levelka ugu horeeya oo ah alphabet level ama level 0ga waxaa loogu talagalay ardadana weligood allahood Englishka baranin ee doonayo in looga bilaabo A B C looga bilaabo oo raba inay alphabetka higaada
iyo ku dhawaaqista erayada yaryar ee si fiican isaga soo dhisaan. markaad level 0 aad kasoo gudubto ama alphabet levelka kasoo gudubto waxaad usoo gudbaysaa level 1 ayaa usoo gudbaysaa ama beginner levelka ayaa usoo gudbaysaa, kaasoo aad ku baran doonto asaaskii luqadda ayaad halkaasi ku baran doontaa adigoo oo baranayo sida maxaa la dhahayay shuruucdii readingkii iyo listeningkii writingkii wax walba adigoo ku baranayo. kadibna waxaad u gudbaysaa labada level kala ah level 2ga iyo level 3ga oo kala ah pre-intermediate iyo intermediate. waa labada level ee ugu lafdhabarsan weeyaan, maxaa yeelay waxaad ku baranaysaa wax walba aad u baahan tahay luqadaadu inay u noqoto mid dhammaystiran ayaad ku baranaysaa. marka levelka saddexaad aad dhammayso ama intermediate levelka aad dhammayso waxaad awood u yeelanaysaa in qof walba English ku hadlayo oo kale haddii uu TV joogo iyo haddii aad banaanka face to face aad u wada hadlaysaan oo kale wax walba uu sheegayo inaad si waadaxa u fahanto adigana aad u jawaab celiso si nadiif ah laguna fahmi karo, aan u baahnaynin inaad faraha taagtaagtid oo si nadiif ah jumlooyinkaada iyo erayada aad u baahan tahay hadba xaaladda ku sugan tahay si dabiici kaaga soo maaxdaan. sida af Soomaaligaba uu kaaga soo maaxanayo markaad ku hadlayso ayuuna Englishkuna kaaga soo maaxan doonaa hadduu Ilaahay ka raali noqdo. marka levelkaasi level 3ga aad dhammayso waxaad u gudbi doontaa advanced levelka ayaad u gudbi doontaa oo dhidibada si fiican ugu aasi doono wixii aad muddada dheer soo baranaysay. koorsani waxay soconaysaa bilow ilaa dhammaad, waxay soconaysaa muddo 9 bilood ayay soconaysaa haddii aad cashirada aad u qaadato jadwalka waxbarasho ee lagu deji doono aad u qaadato aadan habsaamin. waxaa isweydiinaysaa ka waran aniga haddii xoogaar alfabeetka iyo waxaasi aan ka roonahay oo aan doonayo meel dhex inaan ka bilaabo. waxaa jiro imtixaan ayaa jiro laga qaadayo qofkii doonayo xoogaar wax u bilaaban yihiin oo kale imtixaan yar ayaa loo soo dirayaa, kadibna levelka u qalmo ayaa laga diiwaan gelinayaa si waqtigaada qaaliga loo ilaaliyo. waxaa kaloo ayadana awood u leedahay qofkii doonaya muddo kooban inuu ku barto intensive course inuu galo. intensive course waxaa la dhahaa inaad si xawaare aad ku wado laba level aad ku garab wado haddii xoogaar luqadda ay ku bilaaban tahay weeyaan ardadu oo meel dhaxaad ka marayaan oo kale waxay awood u leeyihiin inay laba level isku garab wadan ay awood u leeyihiin muddadiina ay soo koobaan. waad samayn kartaa ayadana waa ku banaan tahay. cashir walba waxaa la socdo waxa la dhaho exercise ayaa la socdo ama quiz ayaa la socdo lagu tijaabinayo fahankaada ama sida aad cashirkaasi u fahantay. marka waa nidaam casri ah oo interactive weeyaan. buug inaad ku qortid looma baahno, exercise-ka aad inoo soo dirdirto isla website-ka gudihiisa ama application-keena gudihiisa ayaad kaga shaqaynaysaa. kadibna markaad dhammayso adigana natiijada waa arkaysaa, anagana natiijadaada waa ina soo gaaraysaa. marka looma baahno inaad cashiro noo soo dirtirto lagu saxsaxo ee ka kala dhudhumaan. waa nidaam casri ah weeyaan. haddaba waxaad isweydiinaysaa sidee ayaan koorsani uga mid noqon karaa ama goormay bilaabanaysaa. koorsani xilli walba ayaa bilaabi kartaa. waa cashiro muuqaalo duuban oo HD ah weeyaan oo meeshaasi ku diyaarsan. qof walbana maalintuu diyaar yahay ayuu iska diiwaangeli karaa. kuma xirnaan doontid arday iyo group buuq badan, kuma xirnaan doontid. iska ayaa cashiradeeda u qaadanaysaa xilliga jeceshahay aadna qaadanaysaa, habeen maalin casr waxaad waqtiga doontaba ha ahaatee. haddaba si aad isaga diiwaangelisid wadada kaliya aad mari karto waxa weeyaan inaad linkiga kor ka muuqdo ama hoos ka muuqdo ee ku qoran tahay koorsada dalbo ama iska diiwaangeli wax lamid ay ku qoran tahay linkigaasi ayaa taabanaysaa. kadibna wuxuu ku geyn doonaa website-keena ayuu ku geyn doonaa. markuu ku geeyana video yar ayaa kuu soo baxayo. kadibna videoga waxaa kasii hooseeyo form ayaa kasii hooseeyo, formka codsiga koorsada ayaa kasii hooseeyo. formkaasi ayaa buuxinaysaa. kadibna muddo 24 saac gudahooda waa lagula soo xiriiri doonaa, waana lagu sharxi doonaa, si fiicanna waa lagu soo dhaweyn doonaa insha Allah. su'aal walbo aad tabanaysane markii lagula soo xiriiro ayaa laga jaahil bixin doonaa ama si fiican lagaga dhaadhici doonaa wax walbo aad su'aal aad qabto. linkiga taabo website ayuu ku geenayaa. website markuu ku geeyo kadibna formka buuxi. marka formka buuxisidna insha Allah waa lagula soo xiriiri doonaa. waxaan filayaa inaan isku arki doono dhinacaasi kale. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.